بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن مركلاتو meel iyo waa joogtaan ba dhamaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan golaha qaranka Soomaaliyeed iyo xubnaha golaha qaranka Soomaaliyeed sida golaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYC, golaha haweenka Soomaaliyeed, golaha ardayda Soomaaliyeed, golaha ururada bulshada iyo golaha aqoonyahanka Soomaaliyeed. Dhamaantiin waxaan idin leeyahay Ramadaan wanaagsan. waxaan Ilaahay inuu ka rajeynayaa inuu dhamaantiin inaka aqbalo toobada bishaas barakeysan. waxaan Ilaahay ka rajeynayaa inuu dhamaan qulubta ummadda Soomaaliyeed isu soo duwo iyo dhamaan qulubta muslimiintaba. barnaamijkeena toddobaadka waxyaabaha ugu badan oo aynu ku qaada dhigi doono Ilaahay idinkiisa wuxuu noqon doonaa zakada oo runtii hanaan diini ah oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay sidii ummadda muslimiinta ah haddii si dhab loo raaco hanaanka kaliya ee looga saari karo baahida. haddii mujtamacaadka caalamku ay iyadana sida ay tahay ay u qaataanna ay tahay waxa kaliya ee bedeli kara ribada maxaa la yiraahdaa hoos u dhaca dhaqaalaha iyo waxyaabaha la midka ah. zakadu waxay ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee kobaca iyo kobcinta bulshada dhinaca dadka tabarta daran iyo dhinaca ganacsigaba. waxay sidoo kale u tahay nadiifin, dahaarin amaba ay u tahay deeq dhinaca adduun iyo dhinaca aakhiraba ay geystaan dadka marka iyagu awooda oo haysta. zakada sida aynu ognahay waxay u kala baxdaa laba qaybood. mid shakhsi ah oo qofkii qaangaaray laga doonayo inuu maaragtay bixiyo inta ka horeysa maalinta ciida, oo uu laga doonayo qof walba oo haysta maalintaas wuxuu cuno in ka badan bixin kara ayay taasi waajib ku tahay. midna waa zakada labaad oo sanadlaha ah oo iyadoo dadka maaragtay hantida haysta laga doonayo iyo oo la doonayo in laga bixiyo xoolaha nool, la doonayo lacagta in laga bixiyo, la doonayo wax xoogaaga aad ku shaqaysatay oo mushaharaadkaaga. haddii maanta dad baa jira toddobaadkii qaata 100,000, dad baa jira ka badan qaata 100,000 oo dollar ama ka badan. marka hadba halka ay gaarsiisan tahay mushaharaadkaaga iyadana in zakaad laga bixiyo. sidoo kale in haddii wadanka ay dowladda ka jirto oo kaleeto khayraadka dabiiciga ah, kuwa macaadinta, dahabka, shidaalka, khayraadka maaragtay badda ku jira, hantida kasoo xirota iyadana in zakaad meelo fara badan oo sidaas oo kale ayay gelaysaa. shirkadaha oo iyagana maaragtay waxa ugu muhiimsan ah fahamkooda. zakaadka waxaad moodaa sabanadan dambe in dadkeena Soomaaliyeed ay inta badan ay wajahaan oo kaliya dadka xoolaha haysta ee xoolaha nool haysta. waxa muhiim sidoo kale in beeraha dalagga ka soo go'a oo iyaga laga yaabo inay sanad in ka yar mararka qaybtood 3 bilood maxaa la yiraahdaa dalagga qaybtii uu kusoo bixi karo. arrintaas marka inay muhiim tahay in dadku u diyaar garoobo sidii zakaadkaas iyo acmaashaas wanaagsan ugu gudan lahaa. dhinaca kale waxaynu soo wadnay toddobaadadii lasoo dhaafay tabarucaad ay maaragtay naga codsatay qaybtan tabarucaadka iyo abaabulada khayriga awada ee Somali Development Trust oo uu mas'uulkeeda maaragtay ugu sareeya Maxamed Soomaali. Ilaahay ajal ihsanaad ha siiyo. uu dad muxsinaada oo Soomaaliyeed uu ka codsaday iyo dad activist ah iyo dad maaragtay isu yimi oo Soomaaliyeed oo meelo kala duwan runtii ka kala yimi oo uu ka tirsanaa saaxiibkay Ducaale Ciise Yuusuf iyo isla markaasna gacan xoog leh ay ka geysatay TV-ga Kalson TV maamulkooda iyo mas'uuliyiintooda iyo culimo Soomaaliyeedba. waxaa sidoo kaleeto ka qayb qaatay dad Soomaaliyeed oo meelo fara maaragtay badan ka soo wacay runtii ku deeqay deeq aan rajeynayno inay wax u tari doonto ummadda Soomaaliyeed
waxaan rajeyneynaa in uu ilaahay dadkaas ballan qaaday laftigooda maaragtay uu gacantooda maaragtay uu kasoo dedejiyo oo maaragtay sidii ay u deeqdan ay maaragtay usoo diraan hadduu ilahay raalli ka noqdo. runtii lacago fara badan baa la ballan qaaday, aada u fara badan runtii, inkastoo aanay lacagtii soo xiroonin oo wax la sugaya ay tahay, haddana waa lacag ku filan inay waxyaabo fara badan bisha ramadaan dadka u qabato. horaa maaragtay meelo fara badan oo ay kamid ahayd beledweyne, xibin iyo xeeb iyo boosaaso oo aan dooneyno inaan iyadana sidoo kaleeto maaragtay dad masaakiina iyo gabar indhala aan maaragtay iyadana wax lagaga qabto. dhammaan dadkii iyo arrimaha ka qayb qaatay iyaguna aada bay u mahadsan yihiin, ilaahay ha ka jazaa-id siiyo. waxaan dadka soomaaliyeedna faraynaa, sadaqadu waa acmaal wanaagsan oo ilaahay qofku miisaankiisa uu saaro, ku taageero maalinta aanay tiir iyo cid ku taageertaa aanay jirin, maalinta aan ehel iyo qaraabo ku maaragtay garab istaagaysa aanay jirin, in intaa iyadana loo degdego aada bay muhiim u tahay. dhinaca kaleeto waxaan jeclahay inaan ku bishaareeyo, ilaahayna ka rajeynayaa in warkaasna soo gaaray uu noqdo war lagu farxo. inkastoo aanan dooneynin inaynu ka hor dhacno, haddana war wanaagsan ayaa kulley saaka muqdishona kasoo gaaray. aan maaragtay rajeyneyno bal in hanaankii nabadeed iyo dib u heshiisiinta ummadda soomaaliyeed iyo sidii oo soomaali khilaaf ay uga bixi lahayd, isla markaana loo wada hadli lahaa oo wax laysaga weydiin lahaa marxaladda aynu ku jirno. waa marxalad dhibteeda iyo waayaheeda leh oo maaragtay mushakiladeeda leh, muddo fogna mushkiladeeda runtii lahayd. bal ilaahay inaynu u noqono oo aynu bal sidii maaragtay ummaddu ay ku jirtay si ka duwan, bal in maaragtay hadday maxkamado noqon lahayd, hadday cadaalad noqon lahayd, hadday bal in markan diinta lagu dayo in dibeedkeeda iyo doodeeda iyadoo uu bilowdo hadduu allah awoodil raalli ka noqdo. isla markaasna qof walba oo nabadda ka qayb qaadan kara loo ogolaado siduu nabadda uga qayb qaadan lahaa, iyadana waa wax inoo yaala hadduu ilaah awoodil raalli ka noqdo. waxaan rajeyneynaa insha allah bal dadkaas maaragtay soomaaliyeed wixii u xiran, wixii maaragtay iyagoo aan u xirnaynaya balse raba inay ka qayb qaataan, intaba in maaragtay loo siiyo fursad hadduu ilahay raalli ka noqdo. taasna iyadana dib baynu ka faahfaahin doonaa hadduu ilahay raalli ka noqdo. walow la doonayo in dadaaladeeda iyo la kordhiyo sidii dalkeena iyo dadkeena uu nabad u heli lahaa. arrimahaas aynu soo sheegnay waxaa garab socda marxaladda lagu jiro inaynan moogaanin, oo runtii dareen toddobaadadan aan aada doonayo inaan uga hadlo, oo aan doonayo inaanu wax ka muujino, horena aynu hadalladeena uga soo qaadanay. sidaynu ognahay waddankii gobollo iyo degmooyin aynan raalli ka ahayn inuu u burburo ayuu u burburay. dadkiisiina wuxuu noqday dad qulubta ay qabaliyad iyo midabta koor yaable ay ka gasho, kalsoonidii dadkuna ay lunto. waxyaabaha ugu yaabka badanin ee dhacay ama dhacayaana ay kamid tahay in qof walbaaba uu naftiisa aamino oo uu waayo qof kale uu aamino, waxa uu hayaana uu aamino in isaga mooye cid kale oo fulin kartaa inaanay jirin. oo runtii waxyaaba maaragtay iyadoo laftigeeda subxaan allah aan diiniyan wanaagsanayn, laakiin haddana marxaladda maanta taallaa ay ka dhex muuqataa. waxa kaleeto oo iyadana jiray inaynu muddo fog soo shaqeyneynay, asxaabo kala duwanna soo shaqeyneynay, haddana dhibaatooyin ay dhacayeen muddadaas fog aynu shaqeyneynay, balse aynu kaga maaragtay gudbaynay dhowr adayg iyo hal adayg dhaba. runtii waxay noqotay in aan isku dayno bal inaan marxaladdii hore wax ka bedelno, not inaynu soomaalinimadeenii wax ka bedelno, not soomaalinimadeenii inay dhibaata u timaado, not inaan qabiliyiin noqono dadka aanu la shaqeynayna ama la shaqeyn doonaa qabiliyadooda iyo midabta koorkooda iyo falsafadooda qaadanaya, laakiin in dadka maatida wax la taro, in iskuulaadka dadka wax la baro, wacyigii bulsho in lasoo dhiso, oo jiilasha soo socda soo koraya lagu xisaabtamo hadduu allah awoodil raalli ka noqda, si nabadgelyo xasiloonina dalkeennana looga taxadiri lahaa, si aanu dagaal dambe iyo amni darre dambe aanay uga dhicin hadduu allah awoodil raalli ka noqdo. taasaa keentay marka in bal federaalkan iyo waxaan laynoo keenay
dadkeenu uu maanta maaragtay u kala maaragtay yaacay inuu qaato, bal inaynu intaynu u tagno bal wixii laga qaban karo wax laga bedeli karo soomaalinimo leh, soomaalinimadeeda si nabadgelyo loo soo dhiso, dareenkii shacabka iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeedna wacyigeedii laga soo bilaabo. taasi waxay timi markii dad fara badan oo aynu u haysanay inay soomaalinimadu dhab ka tahay, caqiidada dhab ah oo diin ku filan oo runtii ka celin kara waxyaabaha qaybtood inay ku degdegayaan ayaanu sidii aan ka filaynay aanay noqonin, iyo dhibaatooyinkaas faraha badan oo iska soo kordhay, amnigii oo noqday mid aan la sugi karin. marka waxaa nala adkaatay in uu qof shaqo qabanaya uu marti u noqdo qof kale oo waajibaadkiisii gudan waayo. For example maanta anigoo kale markii aan tusaale usoo qaado, nin intaa soo shaqaynayay maanta meeshuu Soomaaliya ka tago dad ehel ah oo uu ku kalsoon yahay oo walaalihiis ah oo weliba qaybtood aniga ila dhashay, tusaale ahaan hadda Muqdisho oo kaleeto ay meel walba kaga sugan yihiin, ama mas-uuliyiin ha ahaadeen ama maamulka ku jireen ama boolis ha ku jireen, ama macnaheed nin kalsoonideyda maaragtay aan uga baqaya ama wax u dhimi karaa ma jiro. laakiin dadkii kale ee nala shaqaynayay ee xubnaha golaha ka ahaa ama qaybihii kale ku jiray iyagu nasiib darrada maaragtay dhacday ay noqotay in kalsoonidii dadkii guud ay lunto, isla markaana aan ehel maaragtay markaas meeshii ku lahayn inuu marti u noqdo ama uu uga baqo dareenkiisa inuu gudbiyo qof kaleeto oo isaguna weliba sheeganaya inuu soomaalinimo ka shaqaynayo, islaamnimo ka shaqaynayo, haddana qofkan ka aragtida duwan ama ka kartida badan ee doonaya inuu isagu wax qabto, kartidiisa ku diidaya soomaalinimo inuu wax qabto, amnigiisa inuu khatar geliyo runtii. oo aynu maaragtay bal ula baqnay in aynu inagoo wanaag doonayna inaanan haddana dadka tahliilka ku ridin oo aanan dadkii, taasaa marka keentay qof walbaaba degaan ku kalsoon yahay uu ku shaqayn karo oo uu waajibaadkiisa ku gudan karo inta marxaladdu ay isbedelayso inuu kasoo shaqeeyo haddii Allah subxaanahu watacaala uu raalli ka noqdo. taasu ma aha inaan leenahay midabta koorkii qabliyadeed iyo musuq maasuqii ha la kordhiyo, taasu ma aha inaan leenahay ha laga tanaasulo maxaa la yidhaahdaa in ummaddii ay isu timaado, laakiin bal in grassroot laga soo bilaabo iyada laftigeedu dhinac bay faa'iido ka yeelan kartaa, dhinaca faa'iidada leh in laga soo bilaabo oo meelo fara badan oo kala duwan oo dad Soomaaliyeed oo wanaag iyo kalsooni leh ay jiraan, iyagiina la dhiirigeliyo, inagiina aynu hoos kasoo bilowna, kadibna bal aynu sidaynu Soomaaliya dadkeedii iyo dalkeedii iyo qulubteedii usoo celin lahayd oo aynu qulubteedii usoo noolayn lahayd inaynu u nooleyno inagoo wacyi bulsho, tacliin iyo waxbaris iyo waxtarid, oo aynu hadda tusaale tabarucaadkaas la sameeyey oo maaragtay Somali Development Trust ay sameynayso oo kaleeto, iyo dadkaas wanaagsan ee lacagaha maxaa la yidhahdaa kumaankunka ballan qaaday, iyo markii dhinac maaragtay iyadana dadka laga taageeray dhinac wax laga baro, wacyigii wuu isoo bedelaya, soomaalinimadii way soo noolaanaysaa, qulubtii shacabkeenuna wuu soo noolaanaya. dareenkani wuxuu yimi kadib markii ay dhacday in dad fara badan oo siyaasadda muddo fog kusoo jiray ay ka dideen dareen dad soomaalinimo sheeganaya ama diin u nasab sheeganaya, oo runtii aniga laftigaygu aan soo taabtay inay tahay waxaas fact jira. dadkaas aan wax ka tilmaami doono waxaa kamid ahaa Axmed Ismaaciil Samatar oo aan dhowr goor soo sheegnay, ninka la yiraahdo Cusmaan Abubakar oo isaguna ha noolaatay guddoomiye ahaa. Axmed Ismaaciil Samatar isaguna wuxuu ahaa xisbigii Hiil Qaran ayuu guddoomiye ahaa, iyo dad fara badan oo runtii iyagu ka xishooday inay dareenka noocaas banaanka la yimaadaan, laakiin dhibaata ay ku dhacday noqotayna inay balmaalihii iyo goboladii ay ka yimaadaan dhibaatadoodii ay la hoos galaan. dareenka noocaas haddaynu qarsano runtii dhib baa imanaya, maaha micnaheedu in dadka Soomaaliyeed oo dhan ay dhibkan wada geysanayaan, in yar oo dan leh ayaa dhibkan wada una arka dantoodii waxay ka hor yimaada inay sabab walba oo ay u isticmaali karaan inay u isticmaalaan. arrimahaas in marka iyagana laga digtoonaado hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. waxaan jeclahay oo aan codsanayaa, bini aadan baynu nahay dhammaanteen, goor la dhiman doono Ilaahay baa garanaya, ma garanayno waqtiga aynu gaari doono. waa muhiim inaynu iscafinaa, soo ceshanaa kalsoonideennii, soo ceshanaa walaalnimadeennii, soo ceshanaa islaamnimadeennii. ummadda Soomaaliyeedna meel iyo waa ay joogtaaba, adduunku waa maalmo kooban oo tirsan, qulubta bini aadamkuna sida dadku moodayaan maaha, Ilaahay qulubtanna kama bedelo.
haddana waxaan maaragtay mar walba isku dhiirigelinaynaa in aynu iscafis, ilaahay baa loo sooman yahay dartii, ilaahay baa dartii wax loo qabanayaa, in allah subxaanahu watacaala dartii laysu cafiyo. ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan kusoo qaato ama uu kusoo gabagabeeyo barnaamijkeena toddobaadka, hadduu allah awoodda leh raalli ka noqdo, in dadka soomaaliyeed ay wax ka bartaan maadaama toddobaadkii ugu dambeeyey la joogo zakada. waxaana u sahlaya runtii oo ay maaragtay wax kaga faa-iideysan karaan oo u sahlaya buug uu qoray walaal soomaaliyeed oo la yiraahdo Bashiir Cabdisamed Xareed. runtii Bashiir waxa uu maaragtay aad u tafaftiray maamulka iyo maareynta zakada, xisaabinta zakada, hantida iyo dakhliga. waana runtii buug aada u wanaagsan, waana buug aynu koodhka toddobaadka isaga laftigiisu qeyb muhiima ka ahaa. dad fara badan oo soomaaliyeed oo iyagana maaragtay gacan ka siiyey ayaa jiray, ilaahay maaragtay iyagana ajri xasanad ha siiyo, oo uu kamid yahay Saciid Cali Shire oo isagu noo yimi maxaa la yidhaahdaa maalmo ka hor nagala qeyb qaatay barnaamijyada qeybo kamid ah. isagana waxaan leenahay ilaahay ha kordhiyo maxaa la yidhaahdaa xasanaadkiisa, kheyr maaragtay fara badanna allah ha siiyo, dadaalka u wadana ilaahay ummadda ha u kordhiyo. waxaan jeclahay buuggan inaan marka aan idin recommend gareynayo oo aan idin maaragtay jeclahay toddobaadkan inaad kaga qeyb qaadataan ama aad barataan bal toddobaadadan ugu dambeeya waxaa la yidhaahdaa zakada. waana buuggan aada ujeedaan biidnillahi alkariim, wuxuu ka hadlayaa maamulka iyo maareynta zakada. waxaan kusoo gabagabeyneynaa insha allah sidii maaragtay buuggan aada uga faa-iideysan lahaydeen hadduu allah subxaanahu watacaala raalli ka noqdo. inta aynu jimcaha dambe isugu iman doono, dhinacayga waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan jeclahay inaan mahad u celiyo dhammaan inta ka qeyb qaadatay ama ka qeyb qaadan doonta programmadan. waxaana leeyahay inuu ilaahay ajri xasanaad iyagana ka siiyo. ballanteenu marka iyo toddobaadkan waa inaynu fahmno buuggan zakada maaragtay oo aynu ka faa-iideysano hadduu allah awoodda raalli ka noqdo biidnillahi alkariim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.